marka hadda waxaan galaynaa qaabka marka waxa loo hingaasadaan galaynaa kordhig waan soo fahnay insha Allah ilaahay idin fahansiiyo afkaana furaynaa markaan afka furno ayaan ku dhawaaqi karnaa kordhigaalka marka hadda waan fahnay kordhigaalka waxaan galaynaa qaabka waxa loo hingaasanaa marka sidee waxa loo hingaasadaa aniga si fudud maxaa lahayo dadka aan maxaa lahayo hingaada maxaa lahayo aan ku baraa alxamdulillah weliba qaab fudud weliba oo dadkan maxaa lahayo dad badanna ku aflaxay hingaada ama qaabka aniga aan dadka ku baro haddana waxaan rajaynayaa tan inay maxaa lahayo idin fududaato qaabka aan ku wado inaad ila fahantaan si fiican u fahantaan waxaan maxaa lahayo yani ilaahay ka rajaynaya inuu idin fududay qur'aankana maxaa lahayo keligii ina akhrisin ayaan rajaynaya insha Allah markaad dhameysaan maxaa lahayo dowradan ama maxaa lahayo koorsadan ama casharadaan hingaada ku saabsan markaad dhameysaan maxaa lahayo ilaahay waxaan ka baryaa inuu ilaahay idinku fududeeyo qur'aanka inaad keligii akhrisaan hadda marka waxaan galaynaa qaabka waxa loo hingaasado sidee loo hingaadiyaa ani marka qaab oo kale ayaan maxaa lahayo waxa ku hingaadiyaa ama dadka aan ku baraa waana qaab fudud waa insha Allah kan waxa way hadda way tan waxa way ma tan waa ra ya si fudud way waa tana kan see loo akhrinayo ma waa kana ra'dan waa taas u fiirsa marka sida loo qaabka loo hingaadina fiiri ma ama ra amara dhegeysa fiiri ma labada isku qow marka ama hadhihin ama afka fur ama isku soo dhaweey leh hadda way kala fogay mugtahay isku soo dhaweey ama ra amara sidaa isku qabo labada marka isku akhrisid ka saddexaad keligiisa akhrinaysa hadhowda waad ku daraysaa kulli hama isla akhrinaysa saa dhaha fiiri ama ra amara sa asa da asada ba ra bara ka baraka ta ra tara ka taraka ja ma jama jama'a sa hasa da hasada qa ma qama ra qamara fudadkaas waay saas wadi hadhowda dambe waxaad gaaraysaa hal mar inaad isku qaban kartid hadda waan gogoynin mogtahay hal mar isku qaban karna fiiriya sa ma ra soma u fiirsa bis u fiirsa hal mar rabnaa ma dheheno sama ma dheheno hal mar u fiirsana hal mar inaan dhahano waay ilaa inta waxaa kusoo baranay sida loo kala goynayo oo laba iyo saddex la isugu dhejinayo kadib marka waxaa rabnaa inaan marka baranno hal mar inaan fiirin karno xarafka ama maxaa la kelimada ya ereyga inaan hal mar fiirin karno kadib hal mar inaan maskaxda ka shaqaysin hal mar inaan isla akhrino hal mar isku akhrinayno hal mar ayadoo aan kala goyn anigoo dhehen ma ama ra anoo dhehaynin hal maraan dhehayna fiiriya waa fiirinaynaa thamara waa fiirinayna fiiriya walada fakara saasaa dhehaysa hal mar u fiirsanaysaa bis insha Allah waxaan rajaynayaa maxaa lahaay casharkeeni oo fatxada meeshan ayuu ku eg yahay waxaan maxaa ilaahay ka rajaynaya inuu idin fahansiiyo insha Allah waana sii socon doonaa haddana maxaa lahaay casharkeeni oo maxaa lahaay oo saddexaad wuxuu noqon doonaa qaabka xarfaha la isugu daray hadda waan ka laga goynay si aan u fahanno qaabkii oo loo hingaasanayo qaabka loo hingaasanayo ama qaabka la isku dhaji maxaa lahaay markaan kaas maxaa aan fahanno ayaan geli karnaa qaabka xarfaha isugu darmayn intaad iskuma darno
way kala go'san yihiin insha Allah xarafka maxaa la casharkeena saddexaad iyo wixii kasii dambeeyay waxaan geli doonaa insha Allah qaabka la isugu daray iyo qaabka kor hoos loo akhrinayo kordhigaal godaalka loo akhrinayo geli doonaa insha Allah waxaan ilaahay ka rajeynayaa inuu idin fahansiiyey maxaa la casharkan iyo fatixada qaabka loo akhrinayo iyo sida waxa loo hingaansado إن شاء الله قاب كاسيتو هداد محل يكون ودان واتفهميسين هنجادة إن شاء الله وجزاكم الله خير محل هاي وحان إلهي كبر يا إنه محل هاي نوع أنفعي 10 كاس نوع أنفع 10 كاسيتو قرآن كريم إلهي إنه نوفض إن شاء الله وحان إذا كعسنا إلى محل أجلنا كمحل هاي أسبسكرايب دهدين ودتك إن محل بلشين أنت ذاك الأوسي قد بيسان ميل والبجارسيسان إن شاء الله جارسيسان سيدت بدن أيقو فايدستان هنجادة إن شاء الله سداسي وحان ذيك قلت جايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خير